يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قفك مؤمنك ذنبك ير إيا كوين إيا كوكس طبينو كتوبت كينويا. قفك مؤمنك وين التوبت لازم. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي خلقك كوكا دورتيا يا حلي مالنتي إن تضباطا شير كبدا أيان إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينا وحكى له أباهن مركز مكو قفك الذنوب تكتوبت كينا إنه لي ماده أسبابها كان سنية إنه خير كاللازمة وأنا التوبة دادو تذبذب أنا كل أنا أدب النقطة حتى هذا أدب النقطة طيدها شكني صار نقط إلهي وغفور رحيم قابل الطوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وياه وقفك هدو إيمان كل انتو آخرة وتحت المشيئة إذن إلهي وغافر الذنب ودافك الذنب هدو توبت كانين وقابل التوب وتوبت على واقع أقبلها هديك لنا نار تعلق ما إليها هدي أنو قال لما كل مني نار توامل لقى طاهرين أيه أسكا جدا بيجوك كتجي marka inaad toobad iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga waxa baan qofka mu'minkiin inuu ku dadaalo inuu maydho iskaga dambiga iskaga maydho toobad ilaahay subhanahu wa ta'ala oo toobad keeno sababaha ku gargaara dadka toobadana waxa kamid ah kow ikhlaaska kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin nabi yusuf markii alla ka waramayay ilaahay tilmaamayeen xumaha iyo faxshaaga waxa soo dhan in la ka weeciyay waxa lagu cileeyay inuu yahay adoomaha ilaahay mukhlasiinta ama la doortay ikhlaasku markaa wuxuu ka mid yahay culimadu yiraahdaan waxa wanaaga iyo toobada qofka ugu gargaara waxa ka mid ah culimadu yiraahdaan toobada qofku markuu keeno waxa khayrka ku haya almujahada walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin in ad-dadashid wa khayrka ku dadashid waxa kamid ah waxyaabaha qofka mu'minka toobada ugu gargaara inuu rajada soo dhimo qasri al-amal hadaa tiraahdo si noolaan doonta wali dhalinyaro toobad baa hadhay hadaa curdin kaba malakul mawt uu qabta uma baahna marka inaad da gaadho dheer sadaraadid garirmaysid waqti naftu ka baxayso ta kale macsidu haday badato macsiba ay uquuba u keentaa macsidaadii baa lagu sii ciqaabaya mid kale sidaa ogeed waxa fiican qofka mu'minkii sidoo nabigu alayhi salaatu wasalaam duridan ku noqo kun fi dunya kaanaka gharib aw abri sabil mid ka talaabaya jid ama mid gharib oo meesha soo galay haddaad niyadaada amalka haddaad soo gaabiso toobadaadu way badanaysaa waxyaabaha toobada kaalmeeya waxaa ka mid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko oo cibaadadu khayrka leedahay lagu arko macsidu balaayada wada tara lagu arko waxa ka mid ah waxyaabaha dadka toobada iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada baydhada kelinimadu nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan labadana waa shaydaamo saddexduna waa safar balay يعني الشيطان كنت كليته هي وكل ما ياد بكل جوغا وحلمده انت فراغ اسكتاي قفك مؤمنكي ان انو فراغ نقوم بافيع عبادكم مشغول وحبرشكم مشغول حوكسكم مشغول وقتكاga استعمال waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato laakiin dhalinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato TV-ga daawato waad wareeraysaa sidaa ogaad culimadu waxay yidhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobadana u dhoweeya waxaa ka mid ah albucdu can almuhiiraat waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko jaraa'id TV waxyaabaha xunxunee quranka faafiyoo dhan waxaa ka mid ah waayo ibn al-jawzi baa laga sheegaya inuu lahaa man qaaraba alfitnata bacudat canhu asalaam ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyahay dad mushkilaadka u durugta waa dhib waxa ka mid ah toobada waxa ku wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo
kuwa sharka qaba iskaga hadhi arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إخوتي في العقيدة waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay la yidhi nin bay raacdiye waa kan iyo waa sinaysatay waxa kan ayuu intuu yimi buu xadiiskii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faاstagfir illaah nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay inuu toobadkeen ilaahay subxaanaه wa tacaala u toobadkeen qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa toobaddaasi waxay keensanaysaa aynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantii laga toobad keeno shar dhammaantii ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiintii inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan ظلموا أنفسهم هو هدي حما السمايان أما نفتوذ ظلميان إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كان بالليل حين وبهنا ينرشي نورد بطوبت بيوبهنت كأمة أي نوبهنا ينطوبت كان كأفراد كأشخاص كعائلة إن نطوبت كان توبت روحي كإنسان يساوي إن إلهي جدك يساوي قلنا سبحانه وتعالى خير كان الرعب انت سنكسوكو بي والله أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم